xaqiiqooyin ku saabsan dadka afka gaaban ee had iyo jeer jecel inay keli ahaadaan dadkuna ay ka aaminaan fikrado khaldan inay isla weyihiin oo ay kibir badan yihiin amaba ay yihiin kuwo kalsooni darro ay hayso oo had iyo jeer niyad jabsan. haddaba saaxiib intaynaan muuqaalkeena u gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad like iyo follow aad tiraho aad nagu soo burto haddii aad nagu cusub tahay haddii dhanka YouTube aad nagala socoto subscribe dheh oo waxa weeyaan nagu dhiirigeli inaad subscribe tiraho. saaxiib share garee oo programkan gaarsiiya asxaab badan ku meeshan garee saaxiibadaada leh dhaqamadan iyo caadooyinkan aan kula wadaagi doono. sidoo kale haddii aad adigu tahay dadkaasna gacanta taag. dabciga afgaabnidu waa mid ka mid ah dabciyada uu Alle subxaanahu wa tacaala uu abuuray bini'aadamka, balse dadka badankoodu ma yaqaanaan sida loo fahmo loola dhaqmo dadka leh shakhsiyadan oo kale. dadka afka gaaban waxay ka helaan kelinimada ma ahan inay necab yihiin amaba ay ka baqayaan dadka kale amaba ay yihiin dad khajilaad badan, balse marka ay keligood yihiin ayay helaan tamar badan waana jawi ay jecel yihiin oo gaar u ah. oo inta ay keliga yihiin ayaa fikrado kala duwan maskaxdoodu gorfaysaa. taasna waxay keentay inay had iyo jeer jeclaadaan meel degan oo bilaabuuqa. dadka afka gaaban ma ahan kuwo khajilaad badan amaba qaba xanuunka loo yaqaano cabashada bulshada social phobia, balse waa dad xiiseeya sidoodaba kelinimada. ma lahan saaxiibo badan. dadka afka gaaban ma ahan kuwo leh saaxiibo badan, waxay jecel yihiin inay lahaadaan tiro yar oo saaxiibo ah oo xiriirkoodu dhab yahay daacadna ah. iyagaa doorta saaxiibadooda waxayna jecel yihiin dad dabcigooda fahmaya wayna u hagar baxaan asxaabtooda. waxaa laga yaabaa qofkaas inaad aragto inaanu qofna la hadlaynin haddii ay 100 qof meesha joogaan kaliya hal qof oo si wacan ugula sheekaysto uguna waramo inta kalena uu ka aaminsan yahay. dadkan waa kuwo leh hal abuuran caadi ahayn, wuxuuna wax soo saarkoodu badan yahay markay keligood yihiin. sidaa darteed waxay jecel yihiin shaqooyinka la qabto marka keligay la yahay sida farshaxanka, nashqad dejinta, xisaabaadka iyo wax qorista. kelinimada ayay firfircooni badan ka helaan. waxay firfircoon yihiin markay keligood yihiin waxayna dareemaan dahal badan markay ku hareeraysan yihiin dad buuq badan. dadka afka gaaban ma jecela fadhi ku dirirka iyo goobaha muusikada iyo sidoo kale meelaha lagu buuqsan yahay. inkastoo dadkan afka gaaban had iyo jeer ay jecel yihiin inay kaliya ahaadaan oo waqti kaliya naftooda la qaataan, taas laakiin micnaheedu ma aha inaanay doonayn gebi ahaanba inay qof waqti la qaataan. waxayna jecel yihiin dadka isku dhow yihiin ahadkana isku yaqaanaan saaxiibada dhow yihiinna inay si wacaan u wada sheekaystaan oo ay waqti ku wada qaataan meel degan oo xasiloon. waa dad dhegaysiga ku fiican. waa dad jecel inay ku dhageystaan wayna xiiseynayaan inaad u sheekaysid. waxay ka helaan wada sheekaysiga oo si wacan ayay ku maqlayaan, kama helaan sheekooyinka macno darada ah. haddii ay dhib ku haysatana waa dad kugu fiican aad kala sheekaysan kartid, sababtoo ah way ku dhagaysanayaan. talooyinka ay ku siinayaanna waa kuwo aad looga fikiray. arrintaadana lama wadaagayaan qof kale, waxay noqonaysaa mid sir ah oo labadiina keliya idinka dhexaysa. dadka afka gaaban waa kuwo had iyo jeer aamusan oo sida dadku ay u fasirtaan xirxiran, wayna adag tahay in la fahmo waxay ka fikirayaan. tanna waxay keeni kartaa in loo arko inay yihiin dad isla weyn oo kibir badan. waxaa muhiima inaad fahamto in qofka afka gaaban uu u baahan yahay inuu marka hore si fiican kuu barto ka hor intuusan kuu furfurmin. waqti ayaad u baahan tahay inaad barataan, kalsooni ay timaado, isla markaana oo kuu furfurmo waad ka mid noqoto dhowrka qof ee ugu dhow. maadaama ay dadkan yihiin kuwo jecel inay aamusnaadaan, dadka qaar ayaa u fasirta inay yihiin dad kalsooni darro ay hayso aan awoodin inay hadlaan, balse walaal waanaad ka warhaynin iyagaa ka aqoon iyo xog badan. laakiin tani waa dabcigooda, waana waxay xiiseeyaan inay keli ahaadaan oo ay aamusnaadaan. la wadaag saaxiib dhaqamadan saaxiibkaagaad ku ogtahay. haddii aad adigu tahayna gacanta taag. aad iyo aad baad mahadsantiin.